Go. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوي فريم تيدني ما برنامج لكن وقاير دان aan u soo jeedinayo masiibada ku habsatay magaalada Burco ee dhinaca shuban biyoodka waxa loo yaqaan waxa iiga muuqata arintaasi in la hakraday habacsanaan weyn baa iyana meesha ku jirta dad dhimanaya oo gurmadkii degdeg ahaa ee looga baahnaa aan loo qabanin marka adeega gurmadku waxa weeyaan ama xaaladda degdega ah ee caafimaadka marka laga hadlayaa in ka yar 24 saacadood in hawl adag laga qabto masiibadii markaa dhacday haday duufaan tahay haday gariir tahay iyo haddii ay cudurro faafiyaba tahay cudurka shubanbiyoodku waa cudur faafa oo markaba gaadha meesha uu ka dhaco meel ka durugsan oo dad badan dili kara waa halis soo food saarta bini aadamka mararka qaarkood qofka shubanbiyoodku uu ku dhacaa sometimes ma gaadho 24 saac dhicisku waxaa la yidhi inta birta loo soo sido ayuu baktiyaa dowladnimadan iyo haddii ilaahay ku riyahay maamulka iyo waxa loo samaystaa waxa weeye in masiibooyinka noocaas oo kale ah la muujiyo dadaalka dowladnimo ee bini aadamka ama dadka shacabka waxa loo qaban karayo waxa ayaan daraa hadallada ka soo baxaya magaalada Burco ee muujinaya inaan sayloonka dadka lagu rakibo ama faleebada bahasha loo yaqaano ee nafaqada qofka lagu diro inaanay Burco oolin Burco waa caasimad waa magaalo aad u weyn oo fac weyn oo taariikhiya maantana u muuqata siyaasad ahaan makhaayadda inanta oo kale tuulo yar waa la odhan karayaa xilligan ninka la joogo iyadoo adag tahayba 2017ka in la yidhaahdo adeega faleebooyinka oo kale waa laga waayay haddana waa ayaan daro in Burco la yidhaahdo waa laga waayay taasi waxay keenaysaa in heerka dhimashada ee dadku uu sii bato oo cudurku uu sii faafo meelo ka durugsan Burco ayuu gaarayaan waxaa ii muuqatay siyaasadda marka laga hadlayo in shalay xisbiga kulmiye iyo hogaamiyaashoodu ay kubad ciyaarayeen taasi waxay u muuqataa in ay ku jireen farxad iyo reerayn oo ay iska dhigatirayeen waxaa ka jira Burco waxaa Burco ka jira beri wuxuu iman karaa Laascaanood beri wuxuu iman karaa Hargeysa beri wuxuu iman karaa Gaabo haddaan dadaal xoog leh oo laga hortago arrintaa aan la samayn culimmadu weli waa aaminsan yihiin hogaamiyaashu way aaminsan yihiin waxay xilligan oo kale in wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo wasiirka caafimaadka uu hogaaminaya in xilligan ay ka samaystaan meel ay temporary ay u guuraanba wasaaradooda dabeetana ay hay'adaha jooga Soomaaliland ay weydiistaan in ay gacan ka siiyaan arrimahaasi weli dadku waa dhimanaya dhowr iyo 50 qof baa dhintay ilaa 170 qof ayaa u jiifa cudurkaas oo ciyaar iyo dumarba u badan cudurku siduu ku faafaya hawada ha noqoto ama meelaha ay jiifaan oo iyada lafteeda dayacan ha noqoto waxay noqon karaysaa mid keeni karaysa arrinka dhimka la marayo mid ka sii ballaaran in ay keento waxaan u rajaynayaa inta uu xanuunkaasi saameeyey in ilaahay caafiyo oo ilaahay faraj si degdeg ah caafimaad u siiyo waxaan kaloo u rajaynayaa in dadka reer Burco ay noqdaan dad aan isku hadlayn cid kale iyaga laftooda ay isku tashadaan oo wacyigelin la sameeyo oo cudurka la kantaroolo at least xoogaa in la kantarooli karayo waxaan iyana odhan lahaa dowladda ama xukuumadda ama maamulka Soomaaliland in ay fadhiga ka kacaan oo ay maanta oo kale maalinta loo baahan yahay ay si degdeg ah magaalada u tagaan oo shacabka leeanaya ee weliba cudurkaas ku sii gaarsiin kara meelo kale in ay wax ka qabtaan